سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال قضبضاد ورركنا كم مغلدونتان وحاكم إذا مظاهرات يواوين وربشة وطايا كدعي الدقانك حماردا والله وصور جدا معمولك الدقانك حماردا هي الدولة فدرالك إثيوبيا iyadoo mudaharaadayaashaasi ay ka soconayaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka xamaarada hay'adaha amniga iyo rabshad wadayaasha ay hogaaminayaan xogaga mucaaradka ee faana ayaa si weyn iskugu caydhsanaya wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee deegaanka xamaarada ee maalmadii ugu dambeeyay ay ka taagneed xaaladda amni ee daran sidoo kale gobolka Wallo ee deegaanka xamaarada ayay dagaalo aad u culus ka dhacayaan ayadoo xogaga Tigrayga gabi ahaanba laga saaray deegaanadii ugu ballaadhnaa dagaal culus oo ka soconaya gobolkaasna ay militariga dalka Itoobiya ciidanka deegaanka xamaarada ay xogaga Tigrayga kala wareegeen deegaanada ballaadhan xogaga TPLF-na uu jab aad u ballaadhan ka soo gaaray gobolka Wallo saraakiil wadlay xogaga TPLF ayaa sheegay inay xeelad militari uga baxeen magaalooyin ay muddo dheer gacanta ku hayeen ciidamadooduna ay ka sameeyeen maalmihii ugu dambeysay horumar aad u ballaadhan hase yeeshee militariga Itoobiya uu si fudud gacanta ugu dhigay ciidamada Tigraygana ay dib ugu laabteen deegaano ay horay uga soo duuleen militariga dalka Eritrea ayaa sidoo kale xogaga Tigrayga deegaano ku teedsan xuduudda gobolka Tigrayga iyo dalka Eritrea gacanta ku dhigay iyadoo xogaga Tigrayga laga qabsaday deegaano aad u ballaadhan oo ku teedsan xuduudda waqooyi galbeed Tigray iyo dalka Eritrea iyadoo dagaalo aad u culus deegaanadaasi ka soconayaan xogaga Tigrayga ayaa saacadihii la soo dhaafay jab aad u culus ka soo gaaray dagaalka ka soconaya waqooyi galbeed Tigray ayadoo militariga dalka Eritrea iyo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay guulaha ballaadhan ka sheeganayaan dagaalkaasi dagaalada culus ayaa ka soconaya gobolka Wallega ee deegaanka Oromada iyadoo jaamhadda Ola ee xoreynta shacabka Oromiya ay guulaha ballaadhan ka sheeganayso dagaalka ay kula jirtay militariga dalka Itoobiya iyo ciidamada liyu booliska ee deegaanka Oromada ay jaamhaduna sheegtay inay tignika military aad u ballaadhan ay ka qabsatay ciidamada dowladda weeraro xooggan ay dagaalyahanadu ku qaadeen deegaanada ballaadhan oo gobolka Wallega iyo waqooyiga Shewa halkaan ay ka soconayaan isku dhacayaad u ballaadhan militariga dalka Soomaaliya ayaa saraakiil aad u sarsarayso ka tirsan xogaga argagixisada gacanta ku soo dhig kuwa badan qudha ka jaray ayadoo weli militariga dalka Soomaaliya uu sii wada howlgaladii aadka u ballaadhnay xogaga argagixisada gabi ahaanba lagaga xoreynaya dalweynaha Soomaaliya ayadoo weli xogaga argagixisada isku dayayaan qaraxyo waaweyn oo waxyeello badan soo gaarsiiya bulshada Soomaaliyeed inay ka furiyaan goobaha ay dagaaladu ka socdaan hase yeeshee ciidanka dowladda iyo dhalinyarada mutadawiciinta loo yaqaano ee ka garab dagaalamaya ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa si weyn uga hortagay ay soo qaadayaan xogaga argagixisada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkana ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha tobnaad 2022 haddaynu guda galno wararkeena oo faahfaahsan mudaharaadyo aad u ballaadhan oo rabshado wata ayaa ka dhacaya deegaanka xamaarada oo laga soo horjeeda dowladda federaalka iyo maamulka deegaanka xamaarada ee fadhiisinkiisu yahay magaalada Baxaaradaar ee caasimadda maamulkaasi mudaharaadayaashan ay horkacayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan xogaga faana ee dowladda Itoobiya ay u aqoonsan tahay
ururada xag jirka ee dagaalada xooggan ka wada gobolka Axmaarada ama xogaga sida weyn ay soo hayaan maamulka deegaanka Axmaarada iyadoo halkaasi ay ka soconayaan mudaharaadyo waaweyn oo rabshado wata bulsho aad u tiro badan ay ku waxyeelowday iyadoo hay'adaha amniga deegaanka Axmaarada ay si weyn ula tacaalayaan dhalinyarada mudaharaadayaasha aad ku balaaran ka dhigaysa wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka deegaanka Axmaarada iyadoo xaaladdu aad u cakiran tahay dowladuna ay ciidamada u tiro badan ay u sii daabulayso goobahan ay ka dhacayaan mudaharaadayaasha waaweyn ee hoggaanka ay hayaan xogaga Fana dagaalada culus oo ka soconaya gobolka Wallo ee deegaanka Axmaarada iyo ciidamada federaalka Itoobiya gulaad u balaaran ka gaareen iyadoo jabkii abid ugu cuslaa uu ka soo gaaray xogaga TPLF ayaa jabaad culus ka soo gaaray dagaalka ka soconaya gobolka Wallo iyadoo magaalooyin aad u tiro badan oo gobolka Wallo ku yaala gebi ahaanba xogaga TPLF laga saaray ciidamada Tigrayguna ay u sii huleelayaan goobii ay duulaanka aadka u balaaran ka soo qaadeen ee xuduudda gobolka Tigrayga ciidamada dowladda Itoobiya iyo maleeshiyaadka deegaanka Axmaarada ayaa sheegay inay guli abid ugu cuslaa ka gaadheen xogaga TPLFna ay ku jabiyeen dagaalka gobolka Wallo oo maalmihii u dambeysay u muuqday ku ay xogaga Tigraygu ay horumar ka sameynayeen ayadoo dagaal foolka foola oo khasaare aad u ba'an geystay kumanaan kun oo rayidana barakiciyo gobolkaasi ka dhacay hase yeeshee ciidanka dowladda ay si fudud gacanta u galeen magaalooyin aad u waaweyn waqooyi galbeed Tigray dagaal xooggan ayaa ka soconaya oo u dhaxeeya ciidamada huwanta oo hogaaminaya militariga dalka Itoobiya ciidanka Eritrea ciidamada deegaanka Axmaarada ciidamada laga soo kala ururiyay dalweynaha Itoobiya intiisa kale iyadoo xogaga Tigrayga deegaanada balaaran laga saaray jab aad u culusna uu ka soo gaaray 24 saac la soo dhaafay waqooyi galbeed Tigray iyadoo ciidamada Eritreaanku isku sii balaarinayaan deegaan horle jabhadda aadka u baysan ee xoreynta shacabka Oromiya ayaa sheegtay inay jab aad u culus gaarsiisay ciidamada dowladda Itoobiya jabhadan ayaa maalmihii ugu dhameysay dagaal aad u xooggan ka waday gobolka Oromada iyadoo deegaanada u balaaran jabhadu ay qabsanaysay gobolada Walega waqooyiga Shewa Gujis ayay dagaal xooggan ka dhacayeen iyadoo jabhadu ay sheegtay dagaal yahanadooda inay deegaanada u balaaran qabsadeen iyadoo jabhadu maalmihii ugu dhameysay ay ka waday abaabul aad u balaaran gobolka Oromiya qodobreedkan ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay qudha ka jireen saraakiil sarsare oo ka tirsan xogaga argagixisada gacantana ay ku qabteen saraakiil aad u tiro badan welina ay wadaan ciidanka dowladda duulaanka lagu doonayo gebi ahaanba dalka Soomaaliya in looga xoreeyo xogaga argagixisada ee sida weyn uga dagaalama gudaha dalka Soomaaliya xogaga argagixisada ayaa weli isku dayay inay waxyeeleeyaan bulshada Soomaaliya iyadoo qaraxyo iyo miinooyin aad u tiro badan ay ku aasayaan wadooyinka si ay bulshada rayidka u waxyeelayso hase yeeshee ciidanka dowladda dhalinyarada mutadawiciinta ee macawisleyda loo yaqaan ayaa jabkii abid ugu cuslaa gaarsiiyay xogaga argagixisada welina howlgalladu way sii soconayaan tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu